gudbinaynaa qiso cajiib ah oo ka hadlaysa tala saarashada Alle. Qisadan waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Haweeney ka soo jeeda qoys ladan ayaa ninkeeda uga dhintay lacag fara badan iyo laba gabdhood. Gabadha weyn waxay jirtaa 25 sano waxayna ka qalin jabisay jaamacadda, halka gabadha kale ee yarna ay jirto 22 sano waxayna maraysay sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda, waxayna ku riyoonaysay in ay hesho shaqo marka ay jaamacadda dhamayso kadib. Labadan gabdhood waxaa soo doontay niman badan, laakiin midna maysan ogolaanin inay guursato. Gabadha yar waxay ahayd mid diida guur oo idil oo ka soo horjeesata, waxayna go'aan ku gaartay inaysan sanado guursanin ilaa ay muddo ka shaqaynayso, halka gabadha weynina aysan la wadaagin dadka sababta ay ku diiday guurka. Sidaas ayayna sii ahaatay ilaa uu cimrigeeda ka gaaray 28 sano. Hooyadii dhashay labadan gabdhood ayaa mooday in gabdhaheedii la sixray, taasina ay keentay inay guur oo idil diidaan. Dabadeed hooyadeed waxa ay u tagtay islaan weyn oo taqaana sixirka si ay u ogaato waxa haya gabdhaheeda. Magaaladii ay ku noolaayeen waxaa la isla dhexmarayay inay islaantani tahay islaan zaid u taqaana sixirka. Qof kasta u tagana ay codsiyadiisa u fulin jirtay, waxaas uu ka dalbadayna uu heli jiray bilooyin ama muddo gaaban kadib. Dabadeed islaantii sixirooleeda ahayd ayaa hooyadii waxa ay ka codsatay inay gurigeeda timaado si ay u aragto gabdhaheeda. Kadib gurigii ay timaaday islaantii, gabdhihii hooyadoodna waxay ku qancisay in labadeeda gabdhood waxa hayo ay yihiin sixir, waxayna dareemi doonaan xanuun marka laga bixinayo sixirkan. Waxay u sii raacisay hadalkeedii haddii aan laga bixinin sixirkan in ay weligood sidaan ahaan doonaan oo aysan weligood guursan doonin. Kadib gabadhii yareed ayaa diiday arrintani iyo sida ay u dhaqmayso islaantan sixirooleeda ah. Gabadha yar waxay ahayd gabar xifdisan Quraanka, taqaanana axaadiista Rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sidoo kalena taqaano tala saarashada Alle. Waxayna soo xasuusatay hadalkii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaasoo ahaa: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. حديثكاس oo micnihiisu yahay haddii aad cid wax weydiisanayso alla weydiiso, haddii aad cid kaalmo weydiisanaysana alla kaalmo weydiiso. Waxaad ogaataa haddii ay dadka dhan isku tagaan si ay wax kuu taraan in aysan wax ku tari karin wuxuu alla kuu qoro mooyee. Sidoo kale haddii ay kula maagaan inay kuu geystaan wax dhib ah inaysan kuu geysan karin ilaa wuxuu Ilaahay kuu qoro mooyee. Ama gabadhii weyneed taasoo ahayd mid ka imaan yareed walaasheed waxay ogolaatay wax kastoo ay islaanta sixirooleeda ahayd u soo bandhigtay, waxayna ballan ku martay inay samayn doonto wax kastoo ay samay dhahdo islaanta sixirooleeda ah. Inkastoo walaasheed ka yareed ay ku qancisay waxaani ay samaynayso islaantan sixirooleeda ah inay yihiin wax xun oo Alle ka caraysiinaya. Maalmihii ayaa tagay, gabadhii yareed waxay heshay shaqo, waxaana loo ballan qaaday in la siinayo lacag badan. Lacagtii ugu horreysay ee ka soo qaadata shaqada waxay hadiyad ahaan u siisay saaxiibteed, taasoo sugaysay inay dhasho cunugeedii ugu horreeyay. Waxayna ogaatay in xaaladeeda dhaqaale ay aad u liidato. Saaxiibteed ayaa aad ugu faraxday, waxayna Alle uga bariday in wax kastoo ay tamaninayso uu Alle u rumeeyo. Muddo gaaban kadib, gabadhii yareed waxay guursatay wiil ay shaqo wadaag ahaayeen oo ay hal meel ka wada shaqayn jireen. Wuxuuna ahaa wiil aad u fiican, lehna akhlaaq sarreyso. Hooyadeedna aad ayay ugu faraxday, laakiin gabadhii weyneed ayaa xaaladeeda nafsiyadeed ka sii dartay, taasoo keentay sanado badan oo soo maray ayada oo aan la guursanin. Dabadeed waxaa u timaaday walaasheed ka yareed, waxayna u sheegtay in islaantii sixirooleeda ahayd la xiray. Waxayna walaasheed ka codsatay inay Allah weydiisato dambi dhaaf, ayna Allah tala saarato, kaasoo ay wax walba gacantiisa ku jiraan. Dabadeed gabadhii weyneed ayaa qaladkeeda ogaatay, Allah ayayna weydiisatay dambi dhaaf, waxayna bilaawday salaad fara badan, xusida Alle iyo tukashada salaadaha habeenkii xilligiisa dambe ee salaatuleylka. Waxayna bilaawday sadaqo iyo in ay wax siiso cid kasta oo baahan ilaa uu Ilaahay ka fiiday kurbadii haysay, wuxuuna Ilaahay ku irsaaqay guur wanaagsan iyo nin wanaagsan. Haddaba halkaas ayuu inooga egyahay qisadii aan uga hadlaynay tala saarashada Alle. waxaana rajaynayaa in qisadani ay ku noqoto mid ku anfacdo. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan la wadaag asxaabtaada qisadan si ay ayagana uga cibro qaataan. Waxaan idinkaga tagayaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.